أحمد مذوبة iyo Siciid Dani oo markale faaruujiyay garabkii mucaaradka madaxweynaha Soomaaliya oo ku wajahan goob ay ku sugan yihiin labadan hogaamiye oo khilaafka adag uu kala dhaxeeyay sanadihii la soo dhaafay mid ka mid ah dalalka Soomaalidu ay nacab tahay oo isku keenaya hogaamiyaasha Puntland, Jubbaland iyo madaxda dawladda federaalka Soomaaliya hadaba kulankoodu goormu dhacaya halkee ayuu ka dhacayaa maxayse tahay ujeedada rasmiga ah suuragal ma tahay in laga tanaasulo khilaafkii soo jiray 3 sano ee u dhaxeeyay maamuladan iyo madaxda dawladda federaalka Soomaaliya mucaaradkii meel cidla ay ku soo dhaceen qodobadaas ay kula wadaagi doonaa soo dhawo muuqaalka laagsaar shirgaray aragtidana qaybta hoose comment noogu reeb sida aad u aragto inay heshiiyaan madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo hogaamiyaasha Puntland iyo Jubbaland wararka ka imaanaya ee Sultanka Imaaraadka Carabta gaar ahaan magaalada caasimadda Abu Dhabi ayaa waxa ay ku soo waramayaan inay socdaan dadaaladii ugu dambeeyay oo ay ku kulmayaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo hogaamiyaasha Puntland iyo Jubbaland Siciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe kulankan waxa gadaal ka taagan oo qaban qaabadiisa iska leh Imaaraadka Carabta waxaana hadda Siciid Dani iyo sidoo kale Axmed Madoobe ay ku sugan yihiin isla Imaaraadka Carabta iyadoo qorshe uu yahay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud in marka uu ka soo laabto magaalada Doha ee caasimadda dalka Qatar ee kulanka wadamada Islaamka uu ka dhacayo uu tagi doono Abu Dhabi halkaas oo kula kulmi doono madax ka tirsan Imaaraadka Carabta wararku waxay sheegayaan in hogaamiyaasha Puntland iyo Jubbaland ay la kulmeen madaxda Imaaraadka Carabta oo maalmihi la soo dhaafay ku sugnaayeen Abu Dhabi si ay u gudbiyaan tabashooyinka iyo waxyaabaha ay ka tanaasuli karaan isla markaana qodobada ay ku haystaan filla Soomaaliya ee aan tanaasulka lahayna ay u gudbiyaan Imaaraadka Carabta madaxdii ay la kulmeen waana ay sarkeen qorshuuna waxa uu yahay in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu gaaro Abu Dhabi halkaasna uu kula kulmo madaxda Imaaraadka Carabta kadibna la qabanqaabiyo kulan wadajira oo ay si wadajira u yeelanayaan madaxweynaha Soomaaliya hogaamiyaasha Puntland iyo Jubbaland kulankan waxa uu noqon doonaa kii ugu horeeyay oo si kafool ay isku hor fadhiistaan Siciid Dani iyo Xasan Sheekh Maxamuud tan iyo markii uu madaxweynaha Soomaaliya magacaabay Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre oo 3 sano iyo dhowr bilood ay ka soo wareegatay sidoo kale Axmed Madoobe iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa noqon doona kulankii ugu horeeyay tan iyo markii dib loo doortay Axmed Madoobe oo ay dawladda federaalka Soomaaliya ay ka soo horjeesatay doorashadii ka dhacday magaalada Kismaayo deedna loo jaray warqad soo qabasho Axmed Madoobe taasi oo ay dawladda ku eedeysay inuu yahay eedeysane Imaaraadka Carabta ayaa rabay in door muhiim uu ka qaato xalinta khilaafka u dhaxeeya Puntland iyo Jubbaland iyo dawladda federaalka Soomaaliya waxaana sidoo kale Imaaraadka loogu xantaa inuu yahay dalka kaliya ee garab taagnaa Puntland iyo Jubbaland isla markaana hurinayay khilaafka kala dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya inkastoo hadda uu rabo inuu soo gabagabeeyo khilaafaadka u dhaxeeya dhinacyada sidoo kale Imaaraadka ayaa saaxiib dhow la ah Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Soomaaliya markii uu talada qabanayay laakiin mar dambe ayaa la sheegay inay kala furteen oo uu madaxweynaha Soomaaliya ku xirtay Doha kadib khilaafaad dheer oo uu socday iyo garab istaag Imaaraadku uu muujinayay Siciid Dani iyo Axmed Madoobe si ay uga soo horjeestaan fikradaha Xasan Sheekh Maxamuud iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya waxa hadda suuragal noqday inay isku soo dhawaadaan Xasan iyo Imaaraadka ugu dambeyn Imaaraadku ka shaqeeyo sidii loo xalin lahaa khilaafaadka kala dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya Puntland iyo Jubbaland waxaana sidaas ay ugu yeereen labada hogaamiye ee Puntland iyo Jubbaland hogaamiye iyagoo maalmihi la soo dhaafay gaaray magaalada Abu Dhabi ee caasimadda Sultanka Imaaraadka Carabta madaxweynaha Soomaaliya markuu halkaasi gaaro ayuu la kulmi doonaa hogaamiyaasha Puntland iyo Jubbaland lama oga waxa ka soo bixi doono kulankan iyo in si rasmi ah u qabsoomi doono iyo inay isku fahmi doonaan dhinacyada waxaana Imaaraadka Carabta uu si toos ah ugu shaqeynaya inay is hor fadhiistaan madaxdan oo is weydiiyaan tabashooyinka lagana tanaasulo qodobada aan muhiimka u ahayn dhinacyada Xasan Sheekh Maxamuud ayaa aragti siyaasadeed oo fukale heshiiskan hadii uu suuragal noqdo waxaana mucaaradka ay ku soo dhici doonaan meel cidla maadaama garba waaweyn ay haysteen ay ahaayeen labada hogaamiye ee Puntland iyo Jubbaland isla markaana ay u arki kareen inay dagaalka doorashooyinka ka dhanka ah ay kula gali karaan filla Soomaaliya hadii ay haystaan labada hogaamiye